madaxweynaha deegaanka Soomaalida Itoobiya iyo wafdigiisina waxay habeennimadii seexdeen xarunta Kaalu socdaalkii horumarinta cagaaran waxa uu uga gudbay dhulka ciidda cas ee gobolada Qoraxay iyo Doolo wafdigiina waxaa si weyn loogu soo dhaweeyay tuulada Caleen madaxweynaha deegaanka Soomaalida Itoobiya oo la hadlayay bulshada ku dhaqan tuulada Caleen ayaa sheegay inuu aad ugu faraxsan yahay soo dhaweynta iyo maatinka tuulada Caleen isagoona sheegay in tuulada Caleen ay farxad gelisay sida ay u kortay ee ay u kobocday okay marka waxa weey waan salaamayna sabab ku jirnaa marka waxaan ku soo leexanaynaa salaano Caleen doorkiina way maray laba jingood baayday goor magaalada soo kortay mid kale isku nin baa dhisan malayn isku awr baa dhalay waxa weey waa isku design waa isku waxa weey nooc weeyaan waxa isku qaban Caleen baa mise ma aha waxa waa Caleen inta ka yaray waa baasha caasimada inta la kaatay marka waxaan malaynay waxa leh arinta war malayn nabadgelyo baa lagu dhisay kara wax kale hadda aan maxaa ku raadin karo waxan baa sameyn kara oo nabadgelyo ahayn ma jirto sababta sida ay shalay waan garanayaa inta guriga ku darsantay hadda waan garan karaa inta guriga ku darsantay marka waxa weeye taas oo Ilaahay lagu mahadiyo weeyaan walxamdulillah rabbil alamin wada kuna barwaaqo ku jira waan soo aragnay hal gobol baa abaar inaga jiro gobolka City ee Shinile ayaa ku jira maxaa ku abaar sideed gobol kale waa barwaaqo ku jira iyagana Allah ka bixiyo adduunka labada shay ugu qaalisan gacanta ku haynaa waa dhul iyo biyo dhul labaanay hada dhulka kaasa meel adduunka jiro oo tagada inta la kaatay ya quruxda yaabis waa alxamdulillah ay leedka shaqeyn ma xukuumaddu waxay ku mashquulsan tahay horumar markii la waa maxay koow waa in waxa weeye waxbarashadii caafimaadka iyo biyihii iyo kaabayaasha dhaqaalaha inta wala helo wax kale oo isfarayna maanta ma jirto nabadiide waxa ay mataqaanaa idinka shaqo qabtay oo anigu kala hadli maayo ka meesha marsay idinka la weydiin ay meesha marsan idinku isweydiin meesha doorto marmiya marka taa saacad baa ku jira وارد halka saacad baa ku jira dadka waxay geliyeen meel saacad ku jira ayana halka marka waxa weeye horta runtii waxa weeye wax lagu farxo weeyaan shaytan waxa ka hadlayna nabadgeliyo halka yaarkay orkiisa halka reeyay yaarkay iyo kii u bagaayo waanta waxa soo jira maanta weena ka wada hadlaan horumarka iyo sidii wax loo beeran lahaa oo inta roobku doo wax loo beeran lahaa deegaankeena lagu arkaa wax gaajoonaya oo rafaadsan totally lagu arkan taawaan karnaa waan isku haynaa inaan xoog aan dhulka ku foorarsano wax kala soo baxno adduunka waxa uu qaalisan waa roobka Ilaahay siinayo waxa uu qaalisan weeyaan haddana roobku adduunyada qaadkood wuxuu ku daa meel waxba ka soo saareen meel cidla oo cidna beeranin ayaa adduunyadii waxay manfaacadsanayso Ilaahay ka soo saaraya oo ninka reemiga maanta soo toosay xeebaha leh xoolo leeyahay firsa boqol halaad buu leeyahay boqol ka halaad waliga kama fakirin war boqol ka waxa cun lahayn u beer muxuu isku haleynaya Ilaahay isku haleynayo
halkaa mudhiyo boros hodayday maxaan ku raay wax maxaan ku raay halkaa ay roob daayo waxa weeyaan dhul ilaahay siiyay umba xoolo lagu sii deeyay oo la xoolo halkaan ba ka dhargi ma hal caqli ka qala ma cid baa caqli weydiisay ayr ma halkaa inta tagto ba ayr maxaan ku raay geeni ku sii deeyay uu soo daaqay adu maalan beeranin waxa weey maxaan ku raay ilaahay baa roob soo daayo ku shubay xoolihiina intaan buu kule ka neefka yara inta goordho intaan buu goyno lacag wadan oo meel ka dhigtay way buu goyno ninkii maanta intuu damco xoolo dhaqdo soo ma samayn karo waa dhulkii buu haystaa marka taana waa in ilaahay lagu mahadiyo hortadeen meesha uu ilaahay wadankeeda ka dejiyay marka ku mahadso umba waxa kale helaysaa ma jirto meel adduunka dad ku fikira un roob iska da'ay baan wax ku dhaqan ma jiro way u beeraan dadka wax dhaqday xoolaha waxa cuni waa la beeraa dadku waxa cunayna waa la beeraa labada waa la beeraa laakiin waa inaan ka baxno mustaqbalko anagu saan u beeran lahayna waxa jirta bahal alfaalfa la ilaaho hadduu neefku maxaan ku neefka geeli in yar saa u goosto in yar markuu saa u goosto afar jeerikaan ba markiiba laga lisi oo caana ah afar jeerikaan ba laga lisi marka mustaqbalka geelashaas aan beeran doonaa hadii la yiraahdo oo manaafacaad kale leh oo waxa weeyaan cawskar iyo waxa weeyaan ku soo meel gaarnay si kasta waxa weeyaan waad ku maasantiin shaqooyinka aad qabateen dhanka horumarka dhanka nabadgelyada isjacaylka oo wax ma taqaan la xaliyo dhibaatooyinka la xaliyo aad iyo aad baad ugu maasantiin uba marka hadda iska qabanay cadow kaliya leenahay waa al-shabaab waad garanaysaan al-shabaab waxay ku socotaa halkan ku socotaa cadowgeena waa al-shabaab afar ilaa taxi bariina waan saynaa maantana waan saynaa al-shabaabna waa ogtii waxay dacsantaa idinkaga garanaya shalay waxay ka sameeyeen halka waa ogtiin marka wax weeyaan uma baahan wiil ma taqaan uba kaaga dhinta waayo 40 nin ka jira afar irbarsi waa lagu diri karaa 40 jir afar irbarsi hal xabada lagu dhufto ku dhiman karaa laakiin goormu soo noqon karaa hadii la dhalaba waa bii dhalaba waa 40 sano kadib waa 40 soo gaari karaa soo balado 40 sano dib noqon marka hadaba maxaa adduunka ka 40 sano ninka fatishirku uu ku soo gaaray 40 sano ileen dadku ma geed maaha oo markaa iska bixi maaye oo ma taqaan gelin la beeray maaha waqti bay qaado qofku bilaadiga inuu noqdo ma taqaanaa manfac gal waqti bay qaadataa marka dadka bilaadiga la iska dilay dhibaatada ku dhimanaysa waa qaali bay nagu tahay hadda ka bacdi waa inay saa ku istaagtaa nabadgelyada maanta haysanada ilaahay noo xoojiyo ha adduunka waxa uu qaalisan waa nabadgelyo qofku haddaad nabadgelyo haysto maxaan ku raacaa hawadaas iska cuni caleentaas iska cuni haddaad nabadgelyo haysto qof nabadgelyo haysto waxba waayi maayo ilaahay taama inaga dhigo hanoo adkeeyo ilaahayna mataqaanaa iska jeclaysiyo dad isku mid waxa weeyaan isku tanaasula oo ninka khaldan ka kale u tanaasula hadii la kala ficil qaato waxa weeyaan dhibaato noqonay qoyska iyo ninkii xaaskiisa haday kala ficil qaataan reer ma dhisnaanayo oo iska cadaytaa hadaa la isku tanaasulina wax ma taqaanaa maanta istaagi ma jirto marka dad isku tanaasula oo isjeclaada oo waxa weeyaan aragti midaysan yeesha oo isku fikra Allah inaga dhigo nabadgelyada Allah inoo adkeeyo caleena meel loo soo shaqo tago Allah ka dhigo oo caalamku soo shaqo tago waxa weey war caleena gaarsiin leeyahay Allah ka dhigo waxa weeyaan dadkeedii shacabkeedina Allah barakeeyo annaguna nabad baan waxa kala ku soconaa socdaalka anaga Ilaahay khayr qaba ka dhigo ummadii shacabka ma taqaanaa uron hadda isaan halka deganeedo halkan aan ku arnay goodhow markayna aragtay aad bay ugu farxay nagaweena waxa si fiican bay ugu istaagtay hay waxa sheegtay kulli socdaalka faraha badan madaxweynaha ma lamid waa 5 sano ka hor waxa xasuustay laakiin gaariga marka la arko qofku wuu sii deynaa warkada wardo bal wax sii oo nag wuu sii deyn wabali istaaga 12 maanta fikirka waxa ku jabinay halgan ariyo inaan wiil yar oo naga caray la yaan 6 saac u taagnay inaan wiilkii ma taqaanay soo qabano waxa markii dam xoogna ku soo qabtaa kun ninkaas uu duurka galo waa dhibaatay waa la soo qabtay markaasaan wax kasta ka dharginay wax kastaan siinay markii dam wiil sida hadda moodiyo in kama carreen ba ana wuxuu gaari laga soo dago wala qabto ma aqaanay gaari inta laga soo dago waxna loogu taro waligii ma arkin gaarigan balaacado iyo wiil oo ka carreeyaan wax ka war maxaa naga carreeyay silmeeyda socodkiina ka carreeyay socodkaas wax kale ma weyn saacad markuu kiira dhargay ee wax ka saansiinay oo dharkii ka bedelay oo wax ka saansiinay oo lacag siinay yaa ku nid maxaan ku raa balwar hadda wuxuu yiri maxaan ku raa waxa loo noqonin waxaan ka yahay hadda ka bacdina baabuurta way isku dhaweeyay hadda waxa xasuustay taqaanaa hooyada halka noo istaagtay naga carreynay inta istaagtay tiri waxana baabuur kulli madaxweynaha baan u maleynay ayalaha ma taqaanaa bal timiriyo waxaan ka qaato wax uu tuuturi jiray marka waa wax ma taqaan lagu farxo
in la istaaca fahmo oo maxaan ku rahay qofka iyo shacabka iyo dawladdu ay isdhex fahanto muxuu ninkan muxuu ku fikrayaa muxuu aniga ku fikray in la saamina ugu qaalisan adduunka haddii la kala shakisan yahay waxba la isku qaban karo in la saamina aad bay u fiican tahay marka waxaan dhigi karaa maantana cid waxa weeye maxaan ku rahaa xumaan inaga dhex samayn karta ma jirto sababtoo ah hadduu mid inaga inagu dhex jiro xumaan sameeyo waan iska qabanaynaa ama ciidanka liboos ka hado ama dawladda ha hado ama wuxuu doonayo shakhsigii wax aan maxaan ku rahaa dhaqankeena iyo sharcigeena iyo diinteena aan ogolayn oo la yimaado war waa khalantaan ku dhahaynaa anaga isku mid ah ee joog waxaan ma taqaanaa ma heli kartid sharcigaas haysanaa oo ina kala hagiba laakiin shalay waa kala shakisnaa caleen hadda miyaa laga yaabay reer axmaara intay soo degaan inay kaa qaado laakiin Soomaali waa laga yaabay Soomaali waa laga yaabay marka maxaan ku rahaa hadday saa tahay ciddaan cadow ku hayn cadow ha ka dhiganin ciidaan cadow ku hayn cadow ka dhigan ashaabo reer guuri intay soo degto in halka kugu qabsato wax suurtagal ah laakiin reer Tigray oo inta ka soo guuro maqale ama baxardaari ka soo duuro axmaara awr iyo geel wadato iyo maxaan ku rahaa adhiga wadato ma isku qabsanaysan marka maxaa hadda ku lugooyo waa taas weyn inta wax ka dhaxeeya waa la garanay meel aan meelaha yaalo mataqaan axmaar inta lagu yiraahdo lagu jeeyno waxba kaaga dhiban cid halkan ku haysto ma jirteen cid wax kugu tari mooyee cid halkan ku haysto dawladda ma jirto guri inta laga qaado ma jirto neef aan laga qaad maayo gabar saa loo taaban maayo waxaan cid la qasbi maayo marda cid la qasbi karin cindana hantiisa lagu iman karin waxaan la yeeri karin walibana idinku inaad wax qasabtaan oo wax tar keenaad ku tiraan dawladda weeye oo wax tar ma taqaanaa dawladda keento marka xaqiiqo aad baad maasantihiin haddana waan sii soconaa calee waan ku soo noqnoqon xisbiga dimuqraadiga dadweynaha iyo shacbiga deegaanka Soomaalida Itoobiya dadasho ayay wad noqday dadkaaga adaa kormeera duruuftiyo aysa adaa darso oo ogaada adaa danyartu gargaara dadkaaga adaa kormeera duruuftiyo aysa adaa darso oo ogaada adaa danyartu gargaara dhankoodana bulshada ku dhaqan tuulada caleen ayaa dareen farxadeed ku soo dhaweeyay socdaalka madaxweyne cabdi maxamuud cumar su'aalo dhanka horumarka ahna waxa ay u soo jeediyeen wafdigii madaxweyne cabdi maxamuud cumar hogaaminayay bismillaahir rahmaanir rahiim ilaahay mahad iskale ilaahay rabbigi boqorka ahaay maanta lagu kulmiyay guriga leeyahay caleen adiga iyo waftidaadii yaa mahad u sugnaatay alxamdulilaahi rabbil caalamiin ilaahay baa nagaarsiiyay maalinka hore meeshan lagu martay waadaweyda 4 guri bay ahayd waxaanu nasiib wanaag arrintaas ku qabaa anigu inay aan ku gaarnay guushaas baraarujintaadii iyo maridaadii iyo aragtidaadii iyo la qabsigii dawladda iyo ciidanka nidaamka booliska loo keenay guriga leeyahay caleen anigu dadka ganacsiga aan ku jiray fadhiga Allah rarka la dhigi jiray ritibaa wax laga soo qaadi jiray dhibaatadaas markaas haddana waliba la xasayn jiray dhibaatada markaa xilliga shufto sida waxa ay dadka ku sameynayso haddana 9 candhameedlay 10 candhameedlay magaalada Mahoyda kulligeed dadkeedu wuxuu noqday musakaf wax yar mooyee waxaan codsanaynaa waxa naga dhiman horumar baan nagaarisay waxa naga dhiman in la sukaan raaciyo hadday tahay xagga biyaha ceelkan umad fara badan baa meesha ku nool ceel kala la calaamadeeyay waxaan codsanaynaa madaxweyne ceelka in lagu dhaqsado anteennada in loo sii daayo xagga ogaalka sida aad noo ogeyd awalba inaad noo sii ogaatid oo wixii aan tabayno daawo hadday noqoto hadday daryeel noqoto meeshaas ilaahay idinkan u joognaa waxaan rabaa in laga gaarsiiyo ceelkaas loo biyayo sabanka naloo qodo si degdeg ah loogu qodo madaxweynaha deegaanka Soomaalida Itoobiya mudane cabdi maxamuud cumar ayaa bulshada ku dhaqan tuulada caleen uga jawaabay su'aaloodii dhanka horumarka ballan qaaday in muddo yar gudaheed looga jawaabi doono codsiyadooda arinta ceelka haddii ilaahay waxaan idin ballan qaadaynaa ceelkaas inuu biyihiisu kala go'in oo waxa weeye maxaan ku rahay uu siduu si wanaagsan u shaqeeyo kan cusubna miisaandiisa waa la qodi kan kalena waa la hagaajini marka haddii ilaahay biyo kama fikraysan haddii ilaahay biyo waa la idin furi waana haddii ilaahay insha Allah taala markaan saa noqon hadda waxaan xoogga saaraynaa
saadaan noqono cidii sameeyay soo gali intaan joogno waan la hadlaynaa inay soo galaan yimaadaan oo kana maxaa kula suuna u xumaanin weligii ay ka dhigaan oo hagaajiyaan taana waan u ballan qaaday dilayno ka kale cusubna la sameeyo ballan qaadayna assalaamu calaykum waraxmatullaahi wafdigii socdaalka horumarinta cagaaran ee uu hogaaminayay madaxweyne cabdi maxamuud cumar ayna ku welinayeen wasiiro ay ka mid yihiin wasiirka xafiiska ganacsiga iyo gaadiidka ee deegaanka soomaalida mudane khadar cabdi ismaaciil wasiir ku-xigeenka xafiiska waraabka iyo dooxooyinka mudane ibraahim maxamuud mubaarig marayaha wakaalada qurba joogta deegaanka mudane cabdi khaliif dhoombe wasiir ku-xigeenka xafiiska xidhiidhka arrimaha dowladda mudane baashe cabdi marayaha kuliyadda tababarka macalimiinta mudane maxamuud axmed nuur qaar ka mid a guddoomiyaasha 9 gobol ayaa waxay uga soo gudbeen dhanka tuulada neef ku cesha halkaasina shacabka si weyn waxay ugu soo dhaweeyeen wafdigii socdaalka horumarinta cagaaran bulshada ku dhaqan tuulada neefku cesha oo hadalka qaadatay ayaa sheegtay inay ku faraxsan yihiin imaatiga wafdiga hogaaminaya madaxweyne cabdi maxamuud cumar iyagoona ka warramay xaaladda iyo baahida ay xukuumadda deegaanka Soomaalida Itoobiya ka rabaan inay uga jawaabto السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ماشي المدحوين وعلى ده نيف كعش محن كنا عاي نبتقليه ده بقل وماشي كل يوم عيدا فردين أو محن كنا عيدا للعالمين أو أيوة نبتقليه ده سكته أو أيوة محن كنا هيك ده داشة أو أيوة هذا يمدان أسود شيء ده مدحوينه ما أنت ومالك عند شكر حد دون كان نجم هاي ما عندنا مليسنا اللي معنا يساعدنا نموجنا إلا شل يستعمل بدن كتير لهاي وحاربنا بيه أو ما نقدر وحضرشه عافمات وحي النوع ونقاعد صار إنه ما أنت على مدحوينه النجي عنا وين وطي ما أنت مالك كانوا بالماي يهرمرين بيه أي النوع وهو ما أنت ونقاعد صار إنه إلى ما نوقع كي الحمد لله الشكر ويا مركع بيت يا ما أنت نصيب كنا وناقع كين إنه حال راسه في النار ركته ونوقعته نتقول لك إحنا بسم الله الرحمن الرحيم مدحوينه maanta anagu waxaan nahay dadka ku nool qabalaan neefku cishe saqiir iyo kabiir ba waxaan nahay dadka u taagan nabadda waxaan ka codsanaynaa waxyaabo kooban waxaan rabnaa caafimaadka xaqiisa dawladdu waxay naga soo gaareen waxaan ka haysanaa nabadda taakulada kale oo marka abaaruhu dhacaan ayna taakuleeyaan ayna saacidaan baan ka haysanaa waxaan rabnaa maanta inaad naga caawiso waxbarashada daawada xagga ganacsiga aad waxaan rabnaa in la kaga kobciyo intaasaan codsanaynaa dhanka biyaha madaxweyne maanta naga taageertid maadaama madaxweynaha ayaga tahay kadib ayana farxad baan la wada gariiraynaa kugu soo dhawaynaynaa horta anigu assalaamu calaykum waxaa weeye horta warkii waaba iska ilaaday waa intaa baahidayadu waa biyo waa waxbarasho waa daawo waxa weeyaan dawladdu waa soo gaartay oo nabadgelyadeedii nayu boolis kor allaha ka yeelo madaxweynahana kor allaha ka yeelo ilaahay noo kaadaliyayna cimrigaagu ha raago caafimaad allaha kuugu daro waxa weeye waxaanu rabnaa ilaahay weynaa oo waaxid ahaa maanta hadduu noo kaa keenay inaad wax naga soo gaarsiiso qaybta waxbarashada qaybta daawada qaybta biyaha qaybta horumarka qaybta baahitirka dawladda dhan baanu ka rabnaa wax kala hadda hadalku waa intaas oo kooban wax kale oo la sii sheegaba male aniga saas iiga dhan yahay hadalka salaamu alaykum sakaya salaamu alaykum dawladda sugaynayo salaamu alaykum dawladda sugaynayo
madax